warinayso. mid ka mid ah axaadiista imaamu muslim iyo imaamu axmed ayaa warinayaan. caaisha radiallahu canha waxay leedahay habeen ka mid ah habeenadii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam gurigayga ku lahaa ayaa waxaa dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam gogoshiisii markuu yimid inuu ridaagiisii ama go-iisii isku fidiyey, kobihiisana wuxuu soo qaatay wuxuuna dhigtay lugihiisa agtooda ayuu kobihii dhigtay. caaisha waxay leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam kadib uu seexday, markuu dareemay ama uu is yiri caaisha way seexatay ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam si tartiib ah kobihiisii usoo qaatay, maradiisiina usoo qaatay. markaa kadibna nabiga calayhi salaatu wasalaam iridii ayuu iska furay, wuu soo baxay. caaisha waxay dareentay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu baxay. markaa kadib caaisha waxay leedahay allah ka raali noqdee, waan kasoo doobaxay bay tiri nabiga, waxaan madaxa kusoo duubtay khimaarkaygii iyo maradeydii ayaan soo xirtay, nabiga meeshuu ka baxay gadaashiisii ayaan kasoo baxay ayay leedahay radiallahu canha. ayada nabiga wuxuu u maleeyay inay hurday, laakiin caaisha weli ma aysan hurdin. nabiga markuu baxay si tartiib ah ayay uga soo doobaxday radiallahu canha. kadib waxay tiri caaisha waxaan soo raacay bay tiri nabiga raadkiisii ayaan soo raacay sala allahu calayhi wasalam. siduu u socday nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yimid qabuurihii baqiic. markaas ayuu istaagay, qabuurihii ayuu dhex istaagay. nabiga in cabaar ah ayuu taagnaa bay tiri caaisha radiallahu canha. kadib nabiga gacmihiisii ayuu kor u taagay, wuu duceysanayay. ducadii markuu dhammaystay ayuu nabigu soo gadoomay marka oo uu kasoo noqday qabuurihii. caaisha waxay leedahay markaan arkay inuu nabiga soo noqday ayaan kasoo hormaray bay tiri radiallahu canha si ay guriga uga soo hormarto. kadib caaisha gurigiibay orod kusoo gashay, wax jiifo ayay iska dhigtay. laakiin qof soo ordayay oo maanta dhan soo degdegayay wuu neef tuurahayaa, waa laga dareemayaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu qolkii soo galay ayuu arkay caaisha radiallahu canha inay neef tuurayso. markaasuu yidhi caaisha maxaa kugu dhacay? caaisha waxay leedahay nabi maxamedow waxba iguma dhicin, laa shay waxba ma jiraan nabi maxamedow. nabigu wuxuu yidhi caaisha waad ii sheegaysaa ama ilaahay subxaana watacaala wax iigu sheegaya haddaadan adiga ii sheegin. kadib caaisha waxay u sheegtay nabiga calayhi salaatu wasalaam inay raadkiisii soo daba kacday oo ay uga baqday inuu guryaha kale xaasaskiisa uu aadayo habeenka ayada ay leedahay. saa daraaddeed ayay nabiga usoo daba kacday. caaisha radiallahu canha waxay leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam markaa u sheegay ayaa wuxuu yidhi ilaa wixii qofkii horteedii soo socday ee soo degdega adiga ayuu ahaa. markaasay tiri caaisha haa nabi maxamedow aniga ayuu ahaa, waxaan damcay inaan kaa soo hormaro si aadan ii ogaanin. caaisha radiallahu canha waxay leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu gacantiisii igu dhuftay, dhufasho waxoogaa yari xanuujisay. kadib nabiga wuxuu igu yiri bay tiri caaisha ma waxaad u malaysay in alle iyo rasuulkiisu ay ka eexanayaan, miyaad u malaysay? caaisha radiallahu canha waxay leedahay wax kasta oo bani aadamku u qariyo ilaahay waa ogaadaa nabi maxamedow calayhi salaatu wasalaam, ilaahay waxba kama qarsoomayo. kadib caaisha nabiga wuxuu u sheegay sababtuu u baxay. wuxuu yidhi jibriil ayaa ii yimid oo ii dhawaaqay, kadibna jibriil ayaan la soo hadlayay. sababta waxaa waye qolkiisa ooma geli karo adoo hurdo isku diyaarisay oo dharkaadii dhigatay. saa darteed jibriil ayaan u baxay oo aan la soo hadlayay, waxaanan u maleeyey inaad huruday. saa darteed ayaan ka cabsaday inaan hurdadii kaa kiciyo ama aad cidlo dareento oo aad iweyso. sidaas ayaan si tartiib ah oo aadan dareemeynin ugu baxay buu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam. caaisha waxay leedahay radiallahu canha mawduucii dhan way gedisay marka. yaa rasuulallah maadaa qaala laka jibriil? jibriil muxuu ku yidhi nabi maxamedow? meeshan darsi baa noogu jira, mawduucaa lagu jiray. caaisha waxay maleysay in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu gurihiisii kala aadayo, laakiin caaisha radiallahu canha qalad ayay gashay. siday u maleynaysana arrintu ma noqonin. markaasoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam warkii ma sii wadwadin oo waa gardaraa sameynaysaa iyo doqon baa tahay iyo nabiga ma dhihin calayhi salaatu wasalaam. caaisha markay u sheegtay nabiga calayhi salaatu wasalaam inay soo daba kacday, nabigu wuxuu rabaa inuu caaisha ka shaafiyo arrinta uu u baxay. way soo ogaatay inuu nabiga baqiic aaday, laakiin ayadoo faahfaahsan ayuu nabigu u sheegayaa calayhi salaatu wasalaam. wuxuu ku yidhi marka caaisha jibriil ayaa ii yimid. caaishana warkii meeshaa kuma sii wadino maxaa ii kicin weyse iyo aniga waa maxaa igu sheegi weyse iyo ma orane. waxay tiri yaa rasuulallah maadaa qaala laka jibriil? nabi maxamedow jibriil muxuu ku dhahayay? sheekadii dhammeed ba halkaasaa looga baxay. sidaasoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam darsi wuxuu bixinayaa dadka wada nool wax kasta oo soo kala dhex mara in haddana qofkii laga shaafiyo shakigan iyo maradkan qalbigiisii galay in laga daaweeyo.
haddii kale waxaa ku dhacaysa in qofkii shakigii uu ku weynaado shaydaan uu ugu kaalmeeyo. caaisha arrintii markay ogaatay sheekadii dhammaa way gadisay, waxayna tiri yaa rasuulallah maadaa qaala laka jibriil, nabi maxamedow jibriil muxuu ku yidhi? nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, jibriil wuxuu yidhi ilaahay wuxuu ku amrayaa inaad soo booqato dadka qabuuraha baqiici ku jira ee asxaabta ah, isla markaana aad ilaahay dembi dhaaf usoo weydiiso usoo duceyso ayaa ilaahay ku amrayaa. caaisha meeshan fursad ayay ka aragtay, weligeedna caaisha fursadaha way ka faa'iidaysataa. waxay tiri yaa rasuulallah haddii aan dadka qabuuraha tago maxaan leeyahay? sheekadii maseyrka kasoo bilaabatay waxay isku bedashay caaisha fursadan ay ka faa'iidaysato nabiga calayhi salaatu wasalaam ay wax ka barato. nabigu waxay ku tiri marka yaa rasuulallah haddaan dadka qabuuraha ku jira booqdo maxaan ku dhahayaa? nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa ku leedahay assalaamu calaykum daara qowmi mu'miniin wa innaa in shaa allahu bikum laaxiquun. hadda bal aan yaro isla eegno duruusta iyo fawaa'idda muhiimka ah ee xadiiska noogu jirta. waa marka koowaade sida nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu u ilaalinayo xaaskiisa, sida nabiga calayhi salaatu wasalaam uu u diidahayo inuu hurdada uga kiciyo ama u diidahayo inay cidlo dareento, iyo in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka tegay. nabiga caaisha markuu la hadlaya wuxuu yidhi waxaan maleeyay inaad hurday, waxaan ka cabsaday inaan hurdada kaa kiciyo iyo inaad cidlo dareento oo aad iweyso ayaan ka baqay buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. sidaa darteed ayuu si tartiib ah kabihiisii u qaatay sallallahu calayhi wasallam, si tartiib ahna iridii u furay oo uu uga baxay. isla markii xaajadii la amray uu soo gutana gurigiisii uu soo noqday sallallahu calayhi wasallam. darsiga labaad fiir caaisha radiyallahu canha iyadoo saxaabiyad ah oo khayru khalqillaahi ag joogta oo de ma aragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam wax badan ka baratay, diintii taqaana, haddana khilqadeedii iyo abuurkeedii ma aysan dafirine masayrkii iyo wixii yaraa ay dareentay yacni laguma ceebeynin oo laguma caayin. nabiga calayhi salaatu wasalaamna wax uu ku qabsada caaisha oo dembi weyn ah loogama dhigin, soo ma jeedid? sababta waxaa waaye khayrada iyo maseyrku waa qofka arrin dabiici ah, waana arrin caafimaadku uu ku jiro. waxa uun dhibaato ay keenaysaa marka xadkeedii la dhaafiyo oo xajmigii ay lahayd xajmi ka weyn loo saariyo. laakiin in qofkii uu jecel yahay ama agtiisa ku weyn, ama gabadhu ninkeeda ay u baqato, ama ay ihtimaam weyn siiso, ama ay diidada in lala wadaago, ama ay waxyaabaha dareento, waa arrin iska caadi ah oo qalbiga aadanaha ah ku abuuran. sidaa darteed dad badan ayaa dadka maseyrka ceeb uga dhigay. masalan adiga ahlu diinaa tahay maxaa u maseyraysaa, iyo maseyrka maaragtay dadka kale ha maseyraan laakiin adiga qof fiican ayaad maxaa u maseyraysaa? qofku inuu maseyro waa caadi, waana dabiici, waana abuurista qofka waaye, ma inkiri karo. laakiin waxaa la diidahayaa in maseyrkaas ay dhibaato ka dhalato ama xaddigii uu lahaa la dhaafiyo ayaa la diidahayaa. caaisha radiyallahu canha xadkiisii ma aysan dhaafinin. markay soo ogaatay in nabiga calayhi salaatu wasalaam uusan xaasaskiisii kala aadin ee uu qabuurta uu u baxay, nabigana arrinkii uu ogaaday, caaisha arrintii dhammeedba way ka tagtay, yacni meeshaas ayay ku baaba'day. sidaa darteed nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dareensan yahay caaisha radiyallahu canha inay maseertay. fiiri marka asaga dhaqanku uu sameeyey, marka laga soo tago ereygii yaraa uu ku yidhi caaisha ma waxaad u malaynaysaa inaan kaa eexanayo, haddana nabiga intaa kuma ekaysanin wuu u sharxay sababta u baxay. jibriil baa yimid, waxabaa la amray, sababta uu sheegi waaye xataa inuu baxayo nabiga caaisha radiyallahu canha wuu u sheegay. arrintaas waxay daaweysay dareenkii ku jiray caaisha radiyallahu canha, waa sababta keentay in sheekadii dhammeedba halkaa looga boodo ee sheekadii maseyrka ahayd ee waxbarasho iskugu bedasho. meesha marka la taagan yahay dad badan oo wada jooga waxaa laga yaabaa in arrin kala shakiya uu soo kala dhexgalo. sida caadiga ah waxaa laga yaabaa inay waxyaabo kala dareemaan. waxaa loo baahan yahay markasta inaad caddayso shakiga iyo waxyaabaha qofkaaga uu kaa dareensan yahay inaad ka daaweyso. laakiin haddii waxoogaa yar takabur ah uu ku soo galo oo aniga maxaa kaa galay, anima ay dabakacaysaa, soo qof weyn ma ahi iyo soo qof mas-uula ma ahi iyo aad arrintii ku dhammayso, qofkii qalbigiisii wixii way ku jiraan kama aadan daaweynin. wamaca daalikana way la weynaanaysaa, shaydaan iyo naftiina way u weyneynayaan. taas waxay keenaysaa in waxyaabo taafi ah oo haddii aad sharxi lahayd ama aad qofka u sheegi lahayd gurigiina uu sii jiri lahaa inay guryihii ku dumaan. waa sababta waxyaabo badan
oo iska taafih ah oo xaqiiqatan aysan mudnayn in reer dhan loo dumiyo ee guryaha ugu dumaan. saa darteed takaburka iyo isla weynida waxay keenay in reerkii hadduu dhisan yahayna uu si aan lagu faraxsanayn ku dhisnaado, haddii kalena waxyaabo iska fudud uu guriga ku dumo. cashirkaa nabi maxamed inaan ka barano waayo waxyaabaha keeni kara in qofkan ay waxyaabo qalbigiisi ku abuuraan ama shaki geliyaan, inta aad daaweyn kartid inaad daaweysid. cashirka saddexaad, caaisha radiallahu canha waxayna baraysaa cashir aad iyo aad u muhiima. dad badan markay wax qof ku qabsadaan ama ay qof ku dagaalaan ama ay qof wax ka dareemaan, warkii unbay sii wadahayaan 24 sac oo sii dul saarnaanayaan. laakiin caaisha waxay ku leedahay haddii sheekada arinteedii iyo daaweynteedii ay soo dhamaatay, meesha uga bood level kale aad. levelka kale oo caaisha aadayna way ka faa'iideysatay oo nabigeeyba wax ka baratay. yaa rasuulallah, jibriil muxuu ku yiri? sheekadii dhammeyd ba halkaasaa lagu soo daboolay. jibriil nabigu wuxuu yiri markuu sheegay, yaa rasuulallah, qubuurta markaan booqdo maxaan dhahaa? nabigu meesha waxbuu ku baray caaisha radiallahu canha. waa caaisha xikmadeeda iyo xinkadeeda iyo sida ma aragta caqligeeda uu u weyn yahay, in sheekadii dhammayd ee maseerka ahayd inta kasoo boodo ay mawjad kale korto inay wax barato. saa darteed duruustaas marka waa duruus aad iyo aad u muhiim oo haddii aan naqaano isla markaana guryaha lagu dabaqo, guryaheenu ay ku dhismayaan si aanan kala shaki iyo kala cabsi jirin. waxaan rajaynayaa inkasta uu muuqaalku dheeraaday haddana inaa ila fahamteen meelaha u socdo. adiga naftirkaada waxaa laga yaabaa in waxyaabo aanan sheegin aad xadiiska kala dhexbaxday. maxay tahay waxyaabaha aad kala dhexbaxday ama aad ka fahantay ama aad ka faa'iiday? ula wadaag qaybta hoose ee commentiska. aad iyo aad ay u mahadsantihiin. fadlan la wadaag saaxiibadaada ama qof aad jeceshahay inuu kula fahmo cashirkan si aad iskula fahamtaan nolosha qiimaha badan ee xabiibkan uu ku noolaa sallallahu calayhi wasallam. sidoo kalena aad cashiro dahabi ah oo noloshiina aad ku dabaqdaan aad kala dhexbaxdaan. aad iyo aad u mahadsantihiin. aadna waa idin salaamayaa. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.